waqti aan filayo inuu ahaa 6 bilood ka hor ayaanoo gaari wada ayaa waxa ii soo gashay salaadii waxa la igu gaaray jimcada maalin jimcada ay ahayd waxa arkay iyadoo la marayo 5tii ama 11kii la marayo markaas ay GPS ka waxaan ku qoray masjid ama mataqaana Islamic Center ama ku qoray si aan u helo meel aan ku tukado salaadii jimcada GPS ka wuxuu ii tusay isoo dhigay masjid waxay ku qoran tahay Cape Town's Open Masjid ama macnaha wuxuu noqonayaa hadii caadi loo fasiro macnaha wuxuu noqonayaa masjidka la wada leeyahay ee Cape Town aniga magacii waa la dhacay waxaan siri ma sharaysan waan drive gareeyay meeshii aan ku baakintay baakin yar qurux badan oo la ilaalinayo safe uu leeyahay gudiyahan soo galay suuligaan galay waa weysaystay sida caadada noo ahna dadka maalinta jimcada masaajidku empty ayaa imid oo safka hore oo dhan banaan yahay gadaal xitaa wada banaan tahay imaamka hortiisa meesha imaamku isaago hortiisa fariista halkaas aan salaad sunnah ku tukaday iskaga wardiyay dadkii marka gadaashadii soo fariisanayaan dadkii dib ka imaanayaan marka caadana waxa noo ah qofka saa inuu taa filaya masaajidka marka ku jirtid dareen ma qabtid oo inta mid geesa firfirin iyo qofku inta badan iska wardinaya ana saas ah waa iska wardinay markii la gaaray waqtigii salaada ama yaani khudbada jimcada ayaa waxa meeshii soo istaagay nin qaba suud madow shaati madow tay madow jaakad madow mataqaana surweel madow dhar wada madow nin qaba oo aan gar lahayn oo timuhu geesaha ka jiran yihiin oo meeshii soo istaagay oo muslimnimo ka muuqan aniga marka South-Africa waxaan ku ogahay in marka qaar kood masaajid ay ka qodbeeyaan xubnaha baarlamaanka wasiirada nin gaar ah soo galayo maamo muslim ah soo galayso wasiirada marka qaar kood waxa u maleeyay qof South-African ah oo xil haya oo maanta muslimiinta la hadlayo oo qodbada qaybtii koowaad la siiyay ninkii wuxuu bilaabay inuu ka hadlo Jesus ama Ciisa mawduuc waa Ciisa ka hadlaya marka anigii inkii in yar xogaa indhaha taagay haddana wardiga iska galay hawsha iska galay hoosa iska fiiriyay hal mar baa waxa arkay ninkii oo dhahayo quraanku wuxuu ku sheegay Ciise adoon Ilaahay iyo nabi bible-kuna wuxuu ku sheegayaa inuu yahay son of God iyo Ilaahay inuu Ilaahay yahay laakiin anuu ma xaqiijin karno yani intaas markuu yiri ما حقيقين كرنو يعني قف مسلم إنه يرادو ما حقيقين كرنو إنه عيسى ها نبي يعضون إلهي هل كاسا أنا وكدد مركا عند ذي جيسه في شيء لنا أنا في شيء سا تتكفر اليوم نو ضد ولا نسقن لنا حاس دنب ناقع فديو دور با فديو ورجع كله كل أحد أقول شيء يعني كله بقى ودمر كدمر كده دنب نبا فديو لنا عن كلا واحد فديو ضد جني أو أسرع هاي محيين aniga marka waxay yihiin bad safaan oo fiirin halkii aan ka kacay 4 ragco oo duuraan tukaday 4 ragco markaan tukaday ilaa jooc meesha ka jirtay 4 ragco markaan tukaday ayaa masaajidkii si fiican u fiirshay masaajidku waa masaajid ay ku jiraan muslimiin iyo gaalo macnaha open masjidna waxa laga wadaa masjidka la wada leeyahay maamo yaro goona gaaban qabta ku jirto oday mataqaana qamriistaha iska dhex fadhiyo chokolaayada laamiga fadhiyo dadka chokolaayada laamiga sida qaar ba iskaga jira anigii waan baxay magacii aan qortay waan google gareeyay waaba masaajid jin iyo insi qof kale ku tukado open masjid waan baaray nin waxa iska leh aqoonyahan oo professor oo Christian ahaan jiray kabacdi islaamka soo galay masaajidkaas uu alifay waagar waa lagu kacay waa lagu mudaharaaday muslimiinta ku mudaharaadeen laakiin dawladdu way diiday waxay tirninkan maadaama uu soo xaq u leeyahay wuxuu rabo inuu furto waa loo register gareena marka waxyaabaha ajaa'ib kale oo ogolii waxa kamid ah xitaa ragga qoomuluudka ee dumarka iska dhiga xitaa ku tukadaan way yimaadaan imagine nin timadeystay naasa samaystay dharka dumarka qaba oo nin ah xitaa imaanayo marka Cape Town ama South Africa waa wadan ajaa'ib ah oo wixii la rabo lagu dhax sameyn karo